Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada Manfac TV. Wararka caalamka qodobada aan idin hayno waxaa ka mid ah 51 qofood oo lagu soo waramayo in lagu laayay mudaharaadyada rabshadaha wata ee ka socdo wadanka Nepal iyo weerarada Israel oo ugu yaraan lagu dilay 50 qof iyadoo markaasi ra'iisul wasaaraha Israel la filayo in uu qaabilo saraakiil sarsare oo Mareykan ah kadib markii xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay si weyn u cambaarayeen weerarkii Israel ee lagu qaaday hogaamiyaasha Hamas wixii ka soo kordhay dagaalka Gaza ayaanu idinkugu soo gudbin doonaa. Waxaa sidoo kale wararka iyaga aad ku maqli doontaan wadahadallada nabadeed ee u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine oo hakad galay kadib markii qaar ka mid ah madaxda Ruushka ay ku eedeeyeen dalalka Yurub inay carqaladeynayaan wadaxaajoodida lagu doonayo lagu soo afjaro dagaalkan u dhexeeya Ukraine iyo sidoo kale Ruushka. Qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan. Waa maalinimo Jimcaha taariikhdu maanta waxay ku beegan tahay 12 bisha sagaalaad ee September sanada 2025 kusoo dhawaada warbixinadaas oo dhameystiran. Waxaan ku horeynaynaa 24 saacadood ee ugu dambeysay warbixinadii ugu waaweynaa ee dhanka Gaza. Weerarada Israel ayaa lagu soo waramayaa in ugu yaraan lagu laayay 50 qof maanta oo kaliya 14 ka midna ay ahaayeen isku qoys. Ra'iisul wasaaraha Qatar ayaa la filayaa in uu la kulmo saraakiil sarsare oo Mareykan ka mid ah ama Mareykan ka soo socda kadib markii xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay si weyn u cambaarayeen weerarka Israel ee lagu qaaday hogaamiyaasha Hamas ee Doha. Hamas ayaa ballan qaaday in ay sii wadi doonto dagaalkan kadib weerarka Israel ee Doha waxaana sheegtay in dalabaadkeeda muhiimka ah oo ay ku jiraan in ciidamada Israel gabi ahaanba ay ka baxaan Gaza iyo in dib loo dhiso dhulka aanay waxba iska bedelin. Dagaalka Israel ee Gaza ayaa ilaa haatan lagu laayay ugu yaraan 46650 qof isla markaana tirada dhaawacuna ay gaartay 163503 qofood tan iyo Oktoobar sanadii 2023. Kumanaan kale ayaa la aaminsan yahay in ay weli markaasi dhaawacyo kala duwan ay kaga soo gaareen weerarkaasi. Dhanka kale Israel guud ahaan 1139 qof ayaa looga laayay weerarkan 7 Oktoobar lagu qaaday wadankaasi gaar ahaan Gaza. Haddii aynu eegno dhanka Nepal xiisada ka socoto waxaa weli baxsad ah kumanaan maxaabiis ah oo markaasi ka cararayo xabsiyo intii uu qallaaso socday sida ay booliisku sheegeen. Ugu yaraan 51 qof ayaa lagu dilay mudaharaadyada rabshadaha wata ee ka dhanka musuqmaasuqa wadanka Nepal toddobaadkan iyadoo markaas sidoo kalena la filayo in Sushila Karki oo horey u ahayd gudoomiyaha maxkamadda sare ee Nepal loo magacaabo ra'iisul wasaare ku meel gaar ah. Afhayeenka booliiska wadankaasi ayaa Jimcihii sheegay in dadka ilaa haatan dhintay ay ku jiraan 21 mudaharaadyo amaba mudaharaadyaal tiro badan 9 maxbuus 3 sarkaal oo booliis ah 18 kale balse faahfaahin dheeraad ah kama uusan bixin. 1300 oo qof oo kale ayaa ku dhaawacmay weeraradan amaba qallaasahan iyo sidoo kale qulqulatooyinka halkaasi ka dhacaya iyadoo booliisku inta badan ay xireen qaar ka mid ah wadooyinka iyo magaalooyinka muhiimka ee wadankaasi Nepal. War-saxaafadeedkan ayaa yimid xilli hubanti la'aanta siyaasadeed ee dalkaasi ay sare u sii kacayso iyadoo madaxweynaha wadankaasi iyo taliyaha ciidanka ay qorsheynayaan in ay markaasi la kulmaan Karki oo ah shakhsiga loo magacaabayo ra'iisul wasaare ku meel gaar ah iyo haliyey dhalinyaro oo hormuud u ah kacdoonkaasi. Qamire waxa uu sheegay in ka badan 12500 oo maxbuus oo ka baxsaday xabsiyo kala duwan oo dalkaasi oo dhan ku yaala ay weli baxsad yihiin. Qiyaastii 13500 oo qof ayaa lagu soo waramayaa in ay ka baxsadeen xabsiyada wadankaasi qaarna waa la soo qabtay balse 12533 qof ayaa weli ku dhumaaleysanaya buu yiri. Dadka dhintay waxa ku jira maxaabiis lagu dilay xilligii rabshadaha ay socdeen ama kadib marka ay baxsadeen inta uu dagaalka uu ka socday wadankaasi Nepal. Qaar ka mid ah maxaabiista baxsatay ayaa la sheegay inay isku dayeen inay gubaan amaba u gudbaan dalka Hindiya halkaas oo ciidamada xadka Hindiya ay qaarkood qabteen. Ciidanka Nepal oo soo rogay bandow ayaa sheegay in ay dib u soo heleen in ka badan 100 qori oo la dhacay intii uu qallaaso socday iyadoo mudaharaadyaal amaba dad dibadbaxyaal ah qaarkood lagu arkay iyagoo sita qoryo kala duwan oo automatic ah.
haddaba ra-iisul wasaarahan ku-meel gaarka ee lagu magacaabo Sushila Karki ayaa loo arkaa cod ka dhana musuqmaasuqa taasi oo ka dhigaysa mid ay soo dhaweynayaan kooxaha dhalinyarada ee Gen-Z-ga oo dhaqdhaqaaqan inta badan socdo ka qayb ahaa maadaama musuqmaasuqyadu ay yihiin arrin weyn oo ay ka cabanayeen si kastaba haatee inkasta oo ay caan ku tahay dhalinyaradaasi haddana kooxo kale oo badan kuma ay intooda badan caan kuma agtooda ha ahaatee inkastoo sidaa daraaddeed waxaa loo arkaa musharax is-afgarad lagu heshiin karo waddankaasi ka hirgelin karto magacaabista Karki iyo la filaya in si rasmi ah loo sameeyo kadib kulankan ka dhici doona guriga madaxweynaha oo dib loogu dhigay galabnimadii Jimcaha maanta halkii uu ka dhici lahaa subaxnimadii sida uu sheegay sarkaal ka tirsan ururka kacdoonka dhalinyarada ee ka qayb qaatay qalalaasaha waddankaasi hase ahaatee wariyaha Al-Jazeera ayaa sheegay in weli ay jirto hubanti la-aan ku saabsan in haweeneydan ay qaban karto xilka ra-iisul wasaare ku-meel gaar ah iyadoo aan markaasi xildhibaan ka ahayn baarlamaanka taasi oo ka dhalin karta in Nepal gebi ahaanba la kala diro baarlamaanka ama xitaa la bedelo dastuurka waddankaasi xafiiska madaxweynaha iyo afhayeenka ciidanka ayaa diiday inay ka jawaabaan codsiga warbaahinta Reuters ay doonayso in ay wax kaga ogaato macluumaad ku aadan mudaaraadyada halkaasi ka socday isniintii 21 dibadbaxyaal ayaa lagu dilay xabajoojin boolis intii ay markaasi socdeen dibadbaxyo ka dhanka mamnuucidda baraha bulshada musuqmaasuqa iyo sidoo kale hoggaan xumida ay ka cabanayaan dhalinyarada waddankaasi Nepal salaasadii dadkan careysan waxay gubeen baarlamaanka waxaana xilka iska casilay ra-iisul wasaaraha ama ra-iisul wasaarihii hore ee waddankaasi Sharma Oli halka ciidankuna ay markaasi gacanta ku dhigeen wadooyinka Nepal oo u dhaxaysa Hindiya iyo Shiinaha ayaa wajahaysa xasilooni darro siyaasadeed iyo dhaqaale burbur taniya markii la baabiyay boqortooyadii 2008 iyadoo shaqo la'aan baahsan ay ku qasabtay malaayiin qof in ay shaqo ka raadsadaan dibadda oo ay lacago soo diraan dukaamada ayaa bilaabay inay dib u furaan Jimcaha maanta waxaan la arkayay ciidamo markaasi muujinayaan xaalad caadi ay ku soo noqonayso Kathmandu iyadoo gaadiidka ay ku soo laabteen wadooyinka iyo booliska oo ku hubeysnaa ulaha iyo sidoo kale burarka kala gedsan halkii ay horey u wateen qoryaha qaar ka mid ah wadooyinka iyo xiran inkastoo wadooyinka ay ku yaraayeen ciidamada marka loo barbardhigo maalmo ka hor dowladda ayaa bilowday in ay ku wargeliso qoysaska meedadka dadkoodii lagu dilay mudaharaadyaddan in ay markaasi doonayso in ay sii wado in ay dhegeysato codsiyada qaar ka mid ah dadka waxyeeladu ay soo gaadhay waxaan kusoo gabagabeyn doonaa warkan Ukraine iyo sidoo kale Ruushka wadahadaladii nabadeed ee u dhaxeeyay Ruushka iyo Ukraine ayaa hakad galay sida uu ku dhawaaqay Kremlinka isagoo ku eedeeyay dalalka Yurub inay carqaladeynayaan wadaxaajoodada hase yeeshee uu carabka ku adkeeyay in Moscow ay weli u furan tahay wadahadaladan xilli ay sii kordhiyeen ama kordhayeen duqeymaha Ukraine iyo dagaalka xooggan ee ka socda gobolka Donetsk ee bariga waddankaasi saaxiibada reer Yurub ee Kiev ayaa diyaarinaya cunaqabateed dheeraad ah oo lagu soo rogo Moscow ee Ruushka iyagoo ku boorinayo Washington in sidaas oo kale ay samayso ayna ku cadaadiyaan xabad joojin aan hirgelin kadib markii madaxweynaha Mareykanka Trump uu martigeliyay dhigiisa Ruushka Vladimir Putin shirkaasi oo ka dhacay Alaska bishii hore dalka Mareykanka bayaan ka soo baxay Kremlinka ayaa yimid xilli Ruushka iyo Belarus ay bilaabeen jimcihii aan yiraahdo ciidan ballaaran taasi oo walaac ka dhalisay dhinaca bari ee NATO wax yar kadib markii Warsaw ay ku eedeysay Moscow in diyaaradihii dagaalka droniska ay u soo dirtay hawada Poland arrin markaasi sii xoojisay xiisadda Yurub oo dhanka kale xiisaddu waxay cirkas ku shareertay Poland ayaa xirtay xuduudii ugu dambeysay oo ay la lahayd Belarus habeennimadii xalay iyadoo warbaahinta dowladda ee Minsk ay muujisay ilaalada oo markaasi xarig siliga halkaasi xadka dhigaya ra-iisul wasaaraha Poland ayaa ku tilmaamay maalmaha soo socda inay yihiin maalmo adag isagoo sheegay in dalkiisu u dhow yahay dagaal furin in ka badan waqti kasta tan iyo dagaalka labaad ee adduunka go'aankan aanu ku xidhnay xadka waa jawaab ku aadan dowlatusyada ciidan amaba diyaaradahan markaasi hawada u soo gudbaya gardarada ee ka dhanka Poland ee ka bilaabmaya Belarus ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha ee waddankaasi waxaana sidaas u sameynayna badbaadada muwaadiniinteedna Ruushka waxa uu dhaqmay si gardara Poland maalmihii la soo dhaafay iyo sanado badan iyo guud ahaanba inta uu dagaalkan socday buu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa soo dhaweeyay dhigiisa Polishka magaalada Kiev ayuu kusoo dhibay ka hor wada hadal ku saabsan ammaanka oo la filayay in halkaas ay ka furmaan iyadoo Ruushka uu sii kordhinayo
argagixisgelinta ka dhanka Ukraine iyo kicinta ka dhanka Poland. dalka Lithuania iyo Latvia oo deris la ah sidoo kale xubno ka mid ah NATO ayaa adkeeyay amaankooda waxayna ku dhawaaqeen xiritaanka qayb ka mid ah ama qayb ahaan hawadooda Belarus waxayna sheegtay in haddaba inta badan tijaabadan ay ka dhici doonaan agagaarka Borisovo ee bariga Minsk. madaxweynaha Ukraine ayaa Kiev ku sheegay in damacyada Moscow aysan ku koobnayn dagaalka Ukraine. macnaha ficiladan waa in aanay difaac markaasi joogto la sameeyo buu yiri. mas'uuliyiinta Poland waxay aaminsan yihiin in waxyaabaha Ruushka ay sameynayso in ay markaasi ku daydaan weerar lagu qaado marin dhuleedka Suwalki oo ah xariiq amaba cidhiidhi ah oo ka tirsan NATO kuna taala inta u dhaxaysa Poland iyo Lithuania oo u dhaxaysa Belarus iyo sidoo kale wadanka Ruushka. qorshayaasha ciidan ayaa u arkaa marinkaas inuu yahay meelaha ugu nugul isbahaysiyadaasi. inta ayuu kusoo gabagabeynaya wixii warar oo aad kala socoteen wararka iyaga maanta Manfac TV. haddii aad nagu cusub tahay subscribe inoo saar like garee muuqaalkan la wadaag asxaabtaada.